if you truly are sorry. I know I can speak for myself. Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta. Qisa la yaab leh oo dhacday 2018kii. Haweeney hore uga tirsanaan jirtay booliska Mareykanka ayaa lagu xukumay 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay in ay dil toogasho u geysatay nin dhalinyaro ah oo madow ahaa kaasoo deriskeeda ahaa kuna sugnaa gurigiisa. Balse qisa la yaab leh ayaa ka dhacday maxkamadda dhexdeeda, waxayna ahayd in wiilkii dhintay walaalkii maxkamaddu ku sugnaa uu codsaday in uu laabta geliyo gabadha la xukumay. Markii uu habsiiyay ayay isku ooyeen wiilka madowga ahaa iyo gabadha cadaanka ah ee walaalkii dishay. Waan jecelahay, xumaan kulama doonay ayuu yiri isagoo oynaya Brian Jim oo ka yaabiyay gabadha la xukumay in walaalkii ay dishay. Ma ogi in ay tan suuragal tahay, balse hab ma siin karaa fadlan ayuu yiri. Waxaana loo sheegay inuu hab siin karo. Ku dhawaad daqiiqad ayay isku oynayeen labadooda, inkastoo gabadha askariga ahaan jirtay lagu xukumay 10 sano oo xarig ah. Gabadha oo lagu magacaabo Amber Geiger oo 31 sano jir ah ayaa ku dooday in ay markii xabadda ay ridaysay ay u malaysay in ninka ay dishay uu guriga ugu soo galay, balse waxaa la cadeeyay in ay gurigiisa ku dhex toogatay. Looyiriintii ayaa ku eedeeyay gabadhan in ay gudaha u gashay guriga Botham Jim 26 jir ahaa kadibna ku dhex toogatay fadhiga isagoo ku sugan. Looyiri markaa gabadha u doodaysay ayaa ku dooday in uu ku furnaa buuq fara badan isla markaasna ay ka baxday shaqo 14 saacadood ah daal badan, sidaas daraadeedna ay arinta ku sababtay in ay falka geysato. Gabadhii askariyada ahayd markii laga sii kaxaynayay waxay sheegtay in guriga ay gashay oo u maleynaysay in uu keeda yahay albaabkana uu iska furnaa. Markii ay ninkan ku dhex aragtayna ay toogatay, balse dacwad oogayaasha waxay sheegeen in ay albaabka haranti ku jibisay. Intii lagu guda jiray dhageysiga xad dhaafka ah ee dacwadda kaasoo soconaya isbuuc, gabadha askariyada ahayd waxay qiratay in ay dishay nin aan waxba u geysan. Ninka ay dishay waxa uu ka soo jeedaa jasiiradda Caribbean, Saint Lucia. Wuxuu ahaa xisaabiye ka tirsanaa shirkadda PricewaterhouseCoopers. Walaalkii oo si qiiro leh uga hor hadlayay maxkamaddana waxa uu sheegay in uu jeclaa Geiger qof ahaan ka hor inta uusan isku duubin. Wuxuu yiri ma doonayay xitaa in aad xabsi gasho, waan ku jecelahay qof ahaantaada, waxaan inay kugu dhacaan ma rajaynayo. Kadib ayaana loo ogolaaday in uu habsiiyo. Haddaba intaas ayuu ka yahay muuqaalkeena. Tan iyo muuqaalkiisa xigeenta ku kulmi doona waxaan igaga tegayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.